laba sanatar oo Maraykan ayaa weydiisanaya in baaritaan lagu sameeyo in shirkaduhu ay weydiistaan passwordka Facebooka marka qof waraysi shaqo ay ka qaadayaan taasi in ay jabinayso sharciga u degsan waddanka iyo in kale. Facebook ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay toddobaadkii hore in ay bilihii ugu dambeeyay arkayeen warar sii kordhaya oo ku saabsan shirkaduhu inay isku dayayaan in ay galaan bogagga shaqaalahooda iyo weliba kuwa suurtagalka ay tahay in ay shaqaalaysiiyaan. guddiga ganacsiga Maraykanka ayaa ku baaqay in dadka isticmaala internetka la siiyo qaab fudud oo ay u isticmaali karaan dhammaadka sanadka. isticmaalka qaabkan cusub waxa uu ka hortagayaa adeegyada online-ka iyo shirkaduhu in ay ka duubaan dadka internetka isticmaala habdhaqankooda iyaga oo aan raalli ka ahayn. hay'adda Maraykanka ugu weyn ee ilaalisa xogta ayaa sidoo kale weydiistay shirkadaha in ay la yimaadaan siyaasad cad oo arrintaasi la xiriirta ayna dadka siiyaan qaab xogtooda ay ku heli karaan. Player cusub ayaa yimid mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee telefoonada caaqilka ah. Nokia ayaa bilaabi doonta inay iibiso telefoonkeeda Lumia 800C dalka Shiinaha bisha Abriil ee soo socota. aaladan oo isticmaasha Microsoft software ayaa lagu suuq geyn doonaa $570 Maraykanka. su'aashiisa waxay tahay sidee Nokia u guulaysanaysaa xilli tartan adag uu kaga imanayo Apple iyo Samsung. Samsung Portugal ayaa bilaabay xayeysiin cusub oo ku soo bandhigayo telefoonkii caaqilka ee ugu horeeyay ee qaata 2 SIM card. shirkaddu waxay isticmaalaysaa farsamada maababka oo markii hore loo isticmaali jiray baabuurta iyo dhismooyinka inay ku soo bandhigto oo ay ku xayeysiiso telefoonkan cusub ee 2 kaar qaata.